maanta waxaan noo qabsoomay kulan aan ugu yeernay guddiga maareynta masiibooyinka anagoo kala tashanayna oo weydiin oraaheed diyaarsan oo loo diray iyagoo ka jawaabaya xaaladda dalka ee abaaraha barakacayaasha xaaladda bini'aadnimo meesha maanta marayso isbedel inuu jiro in kale xaaladii fatahaadaha beledweyne waxa ay ka qabteen noocyada masiibooyin ay la tacaaleen meesha ay marayso centerkii emergency centerkii national emergency centerkii hawshiisa meesha ay marayso in sidoo kale waxaan weydiinay sida u hagaan hay'adaha deeq bixiyaasha ee ku saabsan noocyada iyo xaaladaha iyo deeqaha ay bixinayaan in lagu saleeyo baahiyaha dadka masiibooyin ku habsadeen ama barakacayaasha waa ogtahay hay'adaha markay ay imanayaan waxay iska keenaan deeq ayna hubin in loo baahan yahay in kale markay hay'addu hadday ku leedahay kaalin hagid deeqahaas noocyada ay yihiin iyo dalabka ay rabaan baahiyaha iyagoo ku saleynaya baahiyaha dadka su'aalo badan oo aad runtii muhiim u ah runtii si waafiya nooga jawaabeen warbixino badan ayna siiyeen qorshe howleedkooda sanadkan iyo noocyada inay leeyihiin awoodda inay masiibada intayna dhicin ka hor ay ogaan karaan oo ay leeyihiin xarun lagu ogaanayo xaaladaha degdega marka warbixin aad waafiyana siiyeen aadna waan uga wada hadalnay sidii loo horumarin lahaa daabulaada challenge-ga dhibaatada ka haysata deeqaha inay gaarsiiyaan deegaanada iyada laftirkeeda dhibaato weyn ka taagan tahay dhinacyada qaar warbixin aad u ballaaran ayna siiyeen runtii oo annagana aan uga faa'iideyn doono insha Allah inaan report guud ka sameyno golaha guudna horgeyno maasantiin